السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa aqoonyahan academy dhamaantiin waa salaamantihiin aqoonyahan academy dadka nagu xiran dhamaantiin fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka noo saar subscribe iyo sidoo kale videogana like noo saar waayahay saaxiibayaal halkaa kusoo dhawaada. waxaanu shalayto ka warranay gaad muxuu yahay. shalayto imtixaanka gaad waxyaalaha waxa uu yahay wuxuu ku saabsan yahay xilliga la qaado ama waxa loo qaado, sababta loo qaado iyo cidda qaata iyo sababta loogu baahan yahay. halka maanta waxaan ka arkaynaa saamballa ka mid ah gaadka, imtixaanka gaadka la yiraahdo. saamballa ka mid ah siduu u dhigan yahay. dabcan marka hore waxaan soo aragnay saddex qaybood in loo qaybiyo gaadka, imtixaanka gaadka la yiraahdo. inkastoo hadda laga hormariyay eray n laga hormariyay oo n gaad, marka waxay noqonaysaa national graduate admission test. saddex qaybood buu ka kooban yahay gaadkaasi. qaybta koowaad waxaa la yidhahdaa verbal reasoning. verbal reasoning waa english. qaybta ku xigna quantitative baa la yidhahdaa oo waa xisaab iyo logic. marka english wuxuu ka kooban yahay reading comprehension, baasirjiyo la akhrinayo weeyaan. sentence completion, jumlado aad buuxinaysid. choiceska dhexdooda waxaa lagu dhigayaa jawaabihii aad ku buuxinaysid jumladahaas. marka mid ka mid a lagu dhigaya, mid ka mid aad dooranaysa. iyo vocabulary. vocabulary waa erayo cusub, erayada inaad taqaanid. iyo sentence equivalence. sentence equivalence halkan waxa weeye jumlada isu dhigma. jumlad baa original ahaan lagu siinayaa, kadibna mid u dhiganta baa laga rabaa inaad keentid. marka qaybta verbal reasoningku chemistry imise ay tahay baa umaleynayaa aduu dhibcaha lama garanayo, laakiin aduu waa verbal reasoning iyo waxa oo dhan marka soo qaato aptitude-ka qaybta ah, maadaama aan niri imtixaanku sidiisa wuxuu ka kooban yahay gaadka ah qayb maadadaada ah iyo qayb aptitude ah. qaybta aptitude-ka marka gebi ahaanteedaba 30% 30% weeyaan. 70% waa maadadaada. wayna ka fiican sidii waaga hore. waaga hore wax maada ah oo qofku maadada departmentigiisa main departmentigiisa waxba loogama soo diri jirin, imtixaanka keliya ah. qaybta markaan ka tagno qaybta b, markaan tagno gaadka qaybta aptitude-ka waxa weeyaan percentage iyo ratio age problems isugu jirta. wixii lower grades iskuullada hoose lagu soo dhigtay. iskuullada hoose marka maadaama lagu soo dhigtay aad bay u fududahay. boqolley iyo saami iyo waxaas iyo eray waxa weeyaan da'da, eray xisaabeed da'da ah. iyo haddii la rabo percentage squares. square waxa weeyaan waa square-ka waxa weeyaan waa taqaanaa square roots xidid weeyaan iyo xidid saarid iyo exponential loss iyo logarithm. manhajka hore isuu ka hadlaya, laakiin waa adigu basic. inta badan intaa waxaa laga helaa grade 11, grade 12, may grade 11, 9, 8, 6 iyo 5. qaybta kale ku xigta waxaa la yidhahdaa logical reasoning. section c waa logical reasoning. marka halkan deductive iyo induction weeyaan, valid deductive argument iyo paragraph yaro interpretation of graphs. intaas ayuu ka kooban yahay horta gaadka lagu sheego. intaa hadaa si fiican isaga xifdisid, tusaale ahaan qaybta verbal reasoning hadaa si fiican u xifdisid, maxaa fiican ka keentid departmentka in fiican ka keentid, bas waa ku baasi kartaa. maanta waxaan arki doonaa sample ka mid ah gaadka. halkan sentence completion buu noo soo hormariyay qaybta verbal reasoningka. wuxuu leeyahay instruction buu siiyey, wuxuu yiri 1 up to 9 su'aalaha 1 ilaa 9 waxay ku saabsan yihiin yani jumladaha la buuxinayo a b c d waa ku buuxinaysa.
سأبو حين مركز number 1 الناس وقبا viruses are invisible through dash microscope but we know that they are there because we can see the dash the cause virus يحيي وهو أحيانا الأركيكرين وهو أركيكرين مايكروسكوب لكن waxaan dareemi karnaa in halkaas yihiin maxaa yeelay waxay sababaan dash bay sababaan marka haddaan soo qaadano chip cruise-ka koowaad ama ocean-ka koowaad chip haddaan nidhaahdo virus infected through the chip microscope marka suuragaltaa ma noqonayso damage bal laakiin gadaal ka fiicnaan lahayd because virus we can see the damage they cause marka jawaabta markii taa sida saxa loo raadiyo simple microscope waxa ka fudaydka weeyaan culays laga hadli maayo elementary ordinary weeyaan marka jawaabta saxda waxa weeyaan ordinary virus ku xisaaban waxa weeyaan hafo sababan hafo waxa weeyaan jaawareer dhiigkaas waa cudurrada ay sababayaan marka lagumana arki karo ordinary microscope caadiga ah marka number 1 waa waxa weeyaan D jawaabtu number 2 the sea was coming after me as high as a great hill and dash as a enemy tana maxay noqonaysaa waxa weeyaan qofkan wuxuu ka hadlayaa the sea waa bad uu iga daba imaanaysay as high as a great hill si buur weyn oo kale bay iga daba imaanaysay marka hirkeeda iyo waxyaalahaas ka warramaya baa mareeray oo dooni ku socda xaalay marka wuxuu ku leeyahay furious charging horta laba waa iska tuuraysaayo waxaa iska tuuraysaa b u d sababtoo ah adjective-ka ku bilowda indefinite waxa weeyaan vowel-kan indefinite article baa loo rabaa an baa loo rabaa sababtoo shaqal weeyaan arfasin iyo attacking labadaba an bay qaadan lahayd as an baa loo rabaa marka maadaama halkaa aad ka garanaysid waa consonant meesha waxa ku jira labadaas saas u tuurayna labadan kale marka waxa weeyaan triple daran weeyaan buurto aan triple letterna as marka laakiin waxa kaga sii leh haddaan u qaadano sababtoo furious way ciishaysnayd buurto as a charging enemy sida cadow wax meelaysanayo kale bay u ciishaysnayd riyaha markaas dib ordayshay kaasay dib orday kale taana waa jawaabtaas waxa weeyaan waa number 3 although its publicity has been dash the film itself is intelligently well acted handsomely produced and all together dash halkan waxaan ka warramayaa filim buu ka warramayaa filimku waa filim fiican si fiican loo soo saaray inkasta waxay keentaa waa contrast way keentaa although marka halka waxbaa la qarinayaa iyo bal aan niraahno although his publicity caanimadiisa has been tasteless dhadhan la-aan bay ahayd filmku self intelligent acted produced handsomely produced and altogether respectable mid fiican buu ahaa marka mid fiican waxay isu keentay mid xoogaa boring ah taasaa u dhow haddii sophisticated aan isticmaalno sophisticated although lama raacin waa sophisticated extensive lama raacin risky group kuma habboona number 4 it takes character dash to dash the extremities of the arctic region marka waa meelaha aadka maarata u qabow marka qofku waxyaalaha waxa ku noolaan karaa waxyaala u adag oo marka waxa weeyaan meel aad u qabow
qof qabatimay oo ku sadcaalay weeyaan. Spartan qofka meelaha ku sadcaala la yiraahdaa. It takes Spartan. Spartanka waxay ku qaadanaysaa takes waxay ku qaadanaysaa an inimitable ay Spartanka character bay qaadanaysaa dabeecad maxay takes waxay qaadanaysaa Spartan character to negotiate extremes of the action marka taana waa C. As a journalist who works to overturn erroneous functions, Griffin Nicholson was opposed to the court ruling. Marka inta kale marka iska diisay Griffin Nicholson wuxuu diiday court ruling. Waa loo diiday. Okay. Wuu diiday. Taasoo marka maxay keenaysaa? Discourage abuse. Marka barring abuse for the inmates who might be innocent. Inmates who might be marka encourage marka bay noqonaysaa number C. Number 5 waxay noqonaysaa option C bay noqonaysaa. Court kuwii diiday taasoo marka waxay encouraging abuse for inmates dhiirigelinaysa hooseyaasha dadka umidbi xirnaana dadka maxaabiista ah ee xiran umidbi innocent noqon kara. laakiin haddii baarin aan ilaalino tusaale ahaan opposed to the court ruling baarin macno ma keenayso. Okay. Number 6, their conversation was unsettling. The gravity of the topic contrasted to the early with the lightness of the town. Dash with katana lightness weeyaan. Hadal dad baa hadlaya hadalkooduna wax weeyaan. Wili go'aan kamiis kara kuma heshiin sidii murankiyo kale. For the gravity of their topic iyo mawduuca ka hadlayeen contrasted so early aad ayuu markaa uga duwanaa with the lightness of the town. Codka ay ku hadlayeen mawduuca iyo codka markay kala duwanaayeen. halkaa markaa jawaabta saxda ah wax weeyaan waa C. Precision iyo rapidity midnama. halka number 7 wuxuu driver qofka darawalka ka warramaya suddenly applied wuxuu qabtay the brakes. gaari soconayay brakekiisa qabtay macnaha wuu joojiyay si degdeg ah. When he saw markuu arkay dash truck ahead of him gaarigaas wuxuu noqon karaa moving in soconay mobile mid taagan stationary static. marka moving soconaya uu soconaya gaariga uu soconayo dhinaca buu ka maraya soo gaariga waa gaari taagan. marka static biyaha kala loo adeegstaa. mobile-na aan soconayn weeyaan. waxaan soconayn wax taagan ma aha waxaan soconayn stationary laakiin wax zero waa gaariga hadda inta la istaajiyay meel iska taagan oo kale bay stationary la yiraahdaa. brake buu qabtay markuu gaari iska taagan arkay si uusan ugu dhicin. taa markaa number 7 waa labada su'aalood number 7 number 8 iyo 9 Selma is match 2 dash to have everything to do with that obnoxious affair. iyo midaan kale ka dambaysa ninka idin daayay waa inaa isku soo dayda si loo ogaado English inuu halkan sidoo kale waxaan ka galeynaa iyo sidoo kale antonyms aad baa looga faa'iideysto wax u badan qofku uu yaacin karo uu si fiican dhibco fiican ugu keeni karo. antonyms tusaale kan koobaad marka soo qaadano abbreviate waa wax soo gaabin weeyaan. marka expand abridge achieve accept weeyaan. expand waa kasoo horjeeda mugti kasoo horjeeda.
marka erayadaas oo kale iyaguna waa muhiim. Number 11 abjur waa maxay marka ma garanayna abjur laakiin haddaad garanay erayadan kale ka dhex raadinaysa eray marka dis down head deny waa eraya isku macno erayada isku macno dhow waxay keenayaan inay lid ku ahaadaan erayga hore mid ka mid ah haduu yahay laakiin saddexdaad israacaan lid kuma aha saa darteed acknowledge weeye number 11 marka insha Allah tacaala taas in ka badan waxaan rajeynaynaa inaan soo gudbino su'aalaha khuseeya GAT exam dabcan waxa weeyaan waa imtixaan aad u fiican oo dee qofku mustaqbalkiisa hadduu rabo inuu master dhigto uu fursad u helayo inuu markaas mustaqbalkiisa inuu dhigto master. marka saa daraadeed waxa weeyaan qofku si fiican inuu isku soo diyaariyo Ingiriiska iska dhiso oo xisaabta iska dhiso baa aad muhiim u ah haddii kale qofku waxa weeyaan waxaan kombiyuutarka hor yaalla aad ayay u adkaan doontaa inaad qishaysid. saa daraadeed waxaan ku dhiirin lahaa inaad kanaalkan aad ku xirnaataan si aad macluumaad uga heshaan subscribe aad saartaan haddaad ku cusubtiin isla markaana videoga soo gaaray like aad saartid sidaas iyo nabadgelyo.